madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaay wafdi ballaaran uu hogaaminayay ayaa maanta degmada oo looga arimiyo taliska ciidanka aaga bariya qaranka Soomaaliland kaga qayb galay sanad guuradii 22aad ee aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland. madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa waxa munaasabadani kala qayb galay marwada koowaad ee qaranka taliyaasha ciidamada dalalka xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo barasaabo. madaxweynuhu intii aanu gaadhin madasha xuska sanad guuradii 22aad ee aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland ay ka dhacaysay waxa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar, waxaana ka qayb qaatay maamulka gobolka ka degmada ururada bulshada. kadib markii ay wafdidu soo gaadheen deegaanka ay ka dhacaysay munaasabada sanad guurada aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa waxa salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland ciidamada baanboyga kuwaasi oo si weyn ugu soo dhaweeyay xarunta taliska aaga bariya ciidanka qaranka Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu kordhiyay taliska ciidanka qaranka ee aaga bari. intaasi kadib waxay madaxweynaha iyo wafdigiisu si rasmi ah u guda galeen munaasabadii ballaadhnayd ee lagu dabaaldegayay sanad guurada ciidanka qaranka Soomaaliland, halkaas ay kooxo fanaaniin ku soo bandhigeen mashruuc riwaayadeed ka turjumaysa qiimaha uu ciidanka qaranka Soomaaliland u leeyahay qarankani. ugu horeyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Sareeye Gaas Ismaaciil Maxamed Shaqale iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland oo ka warbixiyay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo waliba muga iyo miisaanka ay ku leeyihiin ciidanku qarankani Soomaaliland. waxaa ilaahay ma iska leh inta aan hadalkayga gudagelin waxaan halkan hambalyo u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u dabaaldegaya maanta sanad guuradooda 22aad ee aasaaskooda, kuwaasoo darafyada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo hoggaamihiisa fadhiya laga soo bilaabo Lawiyacado ilaa Dhahar, Xeegarool, Taleex, Gabala in ciidamadaasu magacii iyo sumcaddii Soomaaliland ay qayb libaax ka soo qaateen welina heegan u yihiin inay difaacaan. waxaa markhaanti ah daaqadaheena ka waaweyn. inagu daaqada yaryar baynu samayn jirnay. daaqadda waxaad arkaysa cid kasta waa ka soo dhici kartaa, libaaxa ka soo dhici kara. inay cabsi daayeen oo ay hadda diyaar u yihiin oo aaminsan yihiin inay deegaankoodii joogaan oo cid u gureyn karta aanay jirin. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaay ayaa hambalyeeyay sanad guurada ciidanka qaranka Soomaaliland, isla markaasina ka hadlay dilalka ka dhaca ciidamada gudahooda. waxaana uu sheegay madaxweynuhu in maalmaha soo socda ay u magacaabi doonaan guddi xog raadina قرنا عيدي كلنا وكهيني هذا يسمع هذا يسمع عابد لو كنت جاي هاي والكليانة ونهار يرتاح على هاي عودك عقلك يعود بالتري وحوله لا يكون أنت عارف إستريا هاي لا تركن ولا مهدي يعينك لنا بأمري والربية لا تبكو وقوة وما فشلي تحب الرجال خلينا نقول وحاسوب مرتي فلك عيرك قرك بحديثة قارها عيرك السراكيشة أردت أن هو دبني يبقى فرحهم وأن الوضع على الكريم وحنو عدالية من عدك استوى جيستين ترشع الدماء من عيادة الوكي لدونه أوقف إليه هذا العبادين بدأت تصوص على إن شاء الله وحنقعد دونا كل كلام وبرز بقدر كوسا سواها أبوري gabagabadiina madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa darajooyin ku taxay saraakiil la dalacsiyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland kuwaasi oo ku suntan difaaca dalka iyo dadkaba iyo dhammaanba sugidda xuduudaha dalkani uu la wadaago dawladaha jaarka. وبرواقادن محمد تلفزيون عالمي جاي سومالي كيبل مقالة برعو.